gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiri Isxal ayaa maanta gaaray deegaanka Jilable ee hoostaga magaalo xebeedka Hobyo waxaana halkaas ku soo dhaweeyay shacabka ku sugan deegaanka Jilable ugu horreyn waxa goobta soo dhaweynta ka hadlay shacabkii halkaas ku soo dhaweeyay deegaan dhan oo aan lahayn biyo la cabo oo nadiif ah ama macaan noloshiisu inay adag tahay qof kasta uu fahmi karaa gudoomiye ceelkan Jilable la yiraahdo biyihiisa waxa laga cabaa ceel gacmeed ay qoteen deegaanka dadka ku nooli ceel riig ma laha wara waaweyn oo biyo macaan laga cabo ma laha biyuhusna waxa la sheegaa dadka waxay indheeyaa markii fuustada ay ku haraan cusbo inay isku rogaan waa la dareemi karaa qof binu aadama ama noolo kale inaan biyo cusbo noqonaya inay sacabi karin marka waxa gudoomiye xogta deegaanka Jilable awal waaqif dhanka kale waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha deegaanka Jilable Maxamed Ciise oo sheegay in deegaanka Jilable baahi weyn ay ka jirto sidoo kalena aysan haysan goob caafimaad 13 degmo weeye oo Jilable hoos yimaada 25 kilomitir ilaa 30 oo u baahsan intaas biyo waxa ah ama salo ah waa Jilable biyaha uu leeyahay lagu weysaysan karo in shay lagu dhaqdan ma wax kale oo manaafacaado ay leeyihiin laba arko taas waa mid biyaha mid xagga bulshada gudoomiyaha waxa ku sheegaynaa dadku xabsi uu leeyahay xarun dadka lagu soo martiqaaday leedahay intaas ayaduna hadda koor wax laga ma qaban waxaan maleeyahay waxa iyadoo wax ka qabtay laba qol oo MMC torracaad aan la dhisnayba ugu dhow iyo iskuulkaas oo NSF ay dhistay magarad waxa dawladda Soomaaliya ka qabatay horta maamulihii intaas ugu dhow waxa laga yaabaa hadda iskuulku 2 sano iyo bar 3 buu shaqaynayaa inta dad masaakiina ayaa jeebkooda ka fungareynayay waxa iyadoo wax ka dhiibay ama ka fungareeyay ama wax ka dhiibay ma jiraan hadda macallim baadhiga macalinka jeebka aan ka bixinaa waxa kale oo jira dadka inta la bisnayn way egyihiin waxa laga yaabaa intaan la bisnayn oo dhigataa inta kale inay ka badan yihiin in daruuftooda iyo dantooda gaarsiin wada baa laga yaabaa waxa rabaa marka wixii baahiyo jira gudoomiye inaad ka warbixisaa ama hay'adaha ahaato ama dawladda federaalka ahaato ama dhinacyada ahaato waxaan ka codsanaynaa ku soo dhawo warbixin naga dib ilaahay wax baxshe ugu dambeyn waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiri Isxal oo hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Mudug ugu baaqay in si degdeg ah ay u yimaadaan horta runtii waxa weeye codsiga biyaha wax badan baan dirsanay hal ceel baa hadda soo baxan filayaa magaalo walba magaceeda hadduu ku soo baxaan laga bedeli karo carfuudo iyo laasacile dhexdooda inaan ka qodnaa hadramna ceel oo labadooda ay wada noqdaan sheer noqdaan Jilable waa meesha labaad meesha saddexaad Laanwaale iyo Jilable muhiimadu noo saarantahay markaan labada meelood ugu baahida badan ceelasha ee dadka ku nool aysan haysan ceel ee ay ku badan yihiin dadku waa labadaas meelood waxaan ku dadaalaynaa sidaan focuska u saari lahayn awoodda u saari lahayn sida ceel loo weeli lahaa Jilable dhammaan hay'adahana waa ugu qayl dhabanayna qoraalna waa u qoreen haddana way dhageysan doonaan idaacadahan ka sii daynayna waxa ii xiga caafimaadka haddaan caafimaad lahayn qof kuma noolaan karo meeshaan haddii beeleela xataa mobile team baa hadda ka shaqeeyaan filayaa oo mar yimaada marna iska taga laakiin waxaan ku dadaalaynaa inaan saldhig ka samayno sanadka cusub intaan la gaarin saldhig ay fariistaan oo ay ka shaqeeyaan ayadana waan ku dadaalayaa haddii ilaahay idmo iskuulka ay soo haray iskuulka dawladdu hadda ma wadaan laakiin waxa weeye reer Jilable deegaan ballaaran weeye gaalkacyo waxay ku leeyihiin ganacsato dibadda waxa u jira dad magaalo walba waxa taageera waa dadkeeda taageera midkaan shirkad ee garabkeeda taagan $10 bishii laga qaado kan $10 laga taageero macallimiinta la soo badin kara waxaan u sheegaynaa jaaliyadaha dibadda ee reer Jilable inaad ilowdeen magaalada ku dhalateen inaad ilowdeen sida dadku wax u qabsanayaan wax u qabsatiin inaad ilowdeen deegaankii aad ka soo jeedeen waa runtii waan ku dhaliilayaa reer Jilable jaaliyadooda way maqli doonaan codkayguna waa gaari doonaa aad baan u dhaliilaynaa haddaan nahay reer Jilable hadday yihiin iyo anigoo gudoomiyaha gobolka labadii waa dhaliilaynaa waayo
magaaladaas bandarqaali inta u jirta waxa taakuleeya oo isbitaalka hadda ka wada waa jaaliyadda u dhalatay jaaliyadda Jilable maxaa ku dhacay iyada taas waan ku dhaliilaynaa maxamed muxidiin saxan suxul galmudug TV gaalkacyo